quraanjo aroortay buluc waa jiidi kartaa iskaashiga hirigtiga iyo tigaro cagta maray saddexda qaan goorma la soo bandhigi doonaa goosgooska filimka Tanhaji ee Ajay iyo Seif Ali Khan isku hiri doonaan halka Kajal Saygeedi ay garab siin doonto shaqada Karish Four waa bilaawatay hirigtiga oo raba awoodda Bollywoodka inuu la wareego rasmi filimka Dream Girl iyo muddo 3 toddobaad ah ganacsi wanaagsan uu sameeyay fadlan haday tahay markii kugu horeysa na soo booqanayso fadlan subscribe sar channelka shaqada Karish Four waa bilaawatay hirigtiga Roshan oo raba awoodda Bollywoodka inuu la wareego super hirigtiga Roshan sanadkan 2019 si weyn ayuu u soo rogaal celiyay kadib markii filimkii Super 30 hit u noqday wuxuuna Hindiya ku qabsaday filimkii waa oo bilaawasho taariikh ah la yimid wuxuuna dhigaya wacdaro aan caadi ahayn sida daraadeed hirigtiga Roshan ma doonaa inuu mar kale muddo hawada ka maqnaado wuxuuna rabaa awoodda Bollywoodka si toos ah inuu la wareego sida daraadeed hirigtiga Roshan iyo aabihiisa Rakesh Roshan waxay bilaabeen shaqada hordhaca taxanahooda weynaa ee Karish Four waana mid ka mid ah taxanayaasha ugu caansan looguna jecel yahay abid ee Hindiya sameeyeen filim sameeyaha Rakesh Roshan shaqada Karish Four asigoo bilaabay ayaa xanuun kansarka ka asibay dhanka cunaha nasiib wanaag uu ka soo kabtay xanuunka hayay haatan isaga iyo wiilkiisa shaqada caalamiga ah ee filimka Karish Four laga qabanayo ayay bilaabeen waxayna qoyskan awood badan sheegeen in Karish Four doorar badan iyo cadow badan lagu soo dari doono marka la barbar dhigo saddexdii taxan ee hore Koi Mil Gaya Karish Three waxa la isla dhaxmarayay in Sanjay Gupta oo hirigtig u sameeyay filimkii Kabil director ka noqon doona Karish Four balse sheekada Rakesh Roshan ayaa beeniyay oo sheegay in shaqada Karish Four bilaawatay lana diyaariyay goobaha lagu duubi doono sawiro tijaabo ahna hirigtiga laga qaadayo dhawaan shaaca laga qaadi doono jalaayasha mashruucan hirigtig la jilaaya qorshahan wuxuu yahay in horaanta sanadka dambe 2020 duubistiisa si rasmi ah loo bilaabo Karish Four rasmi filimkii Dream Girl muddo 3 toddobaad ah ganacsi wanaagsan ayuu sameeyay Ishmaan Quraana filimkiisa Dream Girl ayaa toddobaadkiisa saddexaad ganacsi wanaagsan sameeyay wuxuuna keenay 20.5 karoor sidoo kale wadarta guud muddo 21 maalmood ama 3 toddobaad ah wuxuu keenay 108.5 karoor sida shabakada Box Office India shaaca ka qaadeen ma sii socon doona filimkan Dream Girl waayo waxa tiyaatarada inta badan kala wareegay filimkii waa sidoo kale filimkan Dream Girl ganacsi ahaan ma soo qaban karo filimkii Jijori kaasi oo u muuqdo in 145 karoor cimriyaantiisa ku istaagi doono saddex toddobaad wuxuu keenay Dream Girl toddobaadkiisa koowaad 7.12 karoor toddobaadkiisa labaad wuxuu keenay 37.95 karoor toddobaadkiisa saddexaad wuxuu keenay 20.5 karoor wadarta guud wuxuu keenay 128.57 karoor quraanjo aroortay buluc waa jiidi kartaa iskaashiga hirigtig iyo tigaro cagta maray saddexda qaan waxaan dhamaanteen wada ognahay in 25 sano ugu dambeysay fanka India ay awood ku haysteen saddexda qaan oo kala ah Shah Rukh Khan, Aamir Khan iyo Salman Khan kuwaasoo iskoor walba iyaga dhigayay inkastoo sagaashamaadkii uu sanad dool awood muuqato ahaa haddana awoodiisu waa hore ayay galbatay balse xidigahan ilaa iyo maantadan ayay soo taagan yihiin filimada ay keenana waa kuwa iskoor kasta dhiga haddana maalinta koowaad saddexda maalmood ugu horeysa ama guud ahaan lacagta ay soo xareeyaan mana jirin xidig si awood muuqato kaligiis kula tartami jiray haddaba maanta saddexda qaan waxa dhulka la galay Tiger Sharif iyo hirigtiga Roshan kuwaasoo la yimid filimkii waa kaasoo cagta maray inta badan iskooradii u yeelay Bollywoodka maalinta koowaad wuxuu noqday filimka lacagaha ugu badan soo xareeyay wuxuuna soo xareeyay 51.5 karoor sida Box Office India sheegtay iskaashi hirigtiga iyo Tiger laguma qasaarin maadaama ay ka mid yihiin jalaayasha ugu fiican dhanka actionka jili karo waxaan loo dhiibay film action heer sare ah ogown waxaynu ku soo bandhigeen qaabka ciyaar aad u fiican iyo dance waa loogu haray waxayna tani ka caawisay in filimkooda dadweynaha si weyn ugu xoomaan waagii hore Bollywood waxay caan ku ahaayeen in jilaayaal waaweyn hal film lagu mideeyo waxayna gaari jireen guul waaweyn waxaan ka xusi karnaa filmadaasi Mohra Karan Arjun iyo kuwa kale aad u badan hadda haatadan waxa ay muuqataa in shirkadda Yash Raj Films ay dib u soo celisay anagoo